kobaca ganacsiga Soomaalida oo hayo sanadihii u dambeeyay sare u kacay ayaa maanta ito waxa ku soo biiray maqaaxi casri ah oo loo diyaariyay raaligelinta macaamiisha kala duwan iyadoo laga furay meel ku haboon nasiinada iyo sheekada asxaabta kala duwan. Sali Xalaal Grill waxa ka shaqo bilaabay shaqaale khibrad iyo waayo aragnimo u leh hawsha ay macaamiisha u hayaan waxayna qorshaha ku darsadeen kala duwanaanshaha dadka caafimaadka qaba kuwa xanuunsan iyo waliba kuwa baahiyaha gaarka qaba in loogu adeego si siman oo mid walba lagu qancin doono dalabaadkiisa goonida ah. Waxa hirgeliyay injineer Maxamuud Jaamac iyo waliba xaaskiisa Bishaaro wadada aqoon fiican u leh bulshada ay la nool yihiin. Waxa aad soo dalban kartaa qaybta gaarka ee qoysaska iyo asxaabta goonida ugu sheekaystaan ku kulmaan isla markaana ay hawlahooda ku dhameystaan. Waxay ku taalaa 2649 Northland Plaza, Columbus, Ohio 43231. Balanteenu waa booqo oo soo arag. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan maanta halkan isugu nimid furitaanka maqaayadda casriga ah oo walaalkeena Maxamuud Jaamac injineer Maxamuud Jaamac uu ka furay magaalada Columbus ee gobolka Ohio maanta axada halkan isugu yimaadeen mas'uuliyiin badan oo kala duwan akhyaar kala duwan rag iyo dumar isugu jira odayaal culimo iyo akhyaar kala duwan isugu timi. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay furitaankan maqaayaddan casriga ah oo magaaladan ku soo kortay in kasoo maqaayado kale yaalaan laakiin maqaayaddan waxyaabo badan bay kaga duwanaan doontaa maqaayadii hore magaaladan ka jiray. waa maqaayad casri ah cuntooyin kala duwan oo noocyo badan ah dadka caafimaadkoodana wax weyn ka qaban karta dadka cudurrada kala duwan qaba ayagoo waliba ku soo kordhiyay adeeg kala duwan oo dhanka cuntooyinka ah dadka cudurrada kala duwan qaba oo cuntooyin ay cuni karaan iyo cunto nooc walba ah. marka waxaan rajeynaynaa inuu Ilaahay u barakeeyo maqaayaddan uu furay walaalkeen injineer Maxamuud Jaamac iyo xaaskiisa ayagana Allah barakeeyo. anagoo dhan u ducaynaynaa waxaan rajeynaynaa in maqaayaddan noqoto maqaayad aad iyo aad successful ah oo lagu liibaano ayagana Allah u kordhiyo ganacsigooda. thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. waxaan aad maanta ugu faraxsanahay إن شاء الله تعالى inaan ka soo qayb galnay furitaanka maqaaxida la yiraahdo Sali Xalaal Grill abtigay Maxamuud Jaamac ama kaafi loo yaqaano oo cabaar oo ka shaqeynayay iyo Bishaaro إن شاء الله تعالى mataqaana habartay marka maqaaxidani waa maqaaxi aad u casriyeysan gudaheeda aad arki doontaan sawiradeeda meesha koofiga lagu talagalay meesha mataqaana booth style-ka lagu talagalay waa maadaama anu mataqaana laftigaygu aan maqaaxiyaha xoogaa aan yar wax ka garanayo waxaan u maleynayaa maqaaxi waxa weeye sidii casri ah modern loo dhisay weeye. marka waxaan ugu bashaaranaynaa jaaliyadda degan ee Columbus nawaaxigeeda inay ka soo qayb galaan mataqaana furitaanka iyo businesskan inay yimaadaan cuntada ay dhadhamiyaan fiiriyaan comment ka bixiyaan survey ka bixiyaan insha Allah taala. marka aad ayaan mataqaana ugu mahadcelinayaa abtigay iyo inta naga soo qayb gashay rag weyn meesha fadhiyaan trin karin insha Allah taala dad badan way bixin mar hore ay bixin. marka waxaan ugu bashaaranaynaa bulshada degan Columbus nawaaxigeeda inay maqaayad yimaadaan ay mataqaana ay customer ka noqdaan insha Allah taala. marka salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin. dhammaan ummadda muslimiinta iyo Soomaalida oo degan Columbus waxaan ogeysanaynaa in la furay maqaayad cusub oo casri ah oo ku soo biiray maqaayadihii magaalada hore uga jiray. maqaayaddan oo maqaayadaha kale kaga duwan wax badan waxaa furay walaalkay injineer Maxamuud Jaamac iyo Bishaare Cabdi Rude xaaskiisa. ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay u barakeeyo marka hore oo ilaahay businesska uga dhigo mid baraara. dadka Soomaalidana waxaan ugu baaqaynaa inay ku soo dhawaadaan maqaayaddan. waxay ku taalaa area-da Soomaalidu u badan tahay 161ka meelaha businessada Soomaalidu ku yaalaan baarkin weyn bay leedahay cunno aad u macaan baa lagu sameyn doonaa. saakaana waa ka quraacno runtii cunno aan ka helay oo caafimaad ahaan iyo dhadhan ahaan baan ka helay baan kaga quraacanay. waxaan ugu bishaaraynaynaa bulshadu inay ku soo dhawaadaan waxaan ugu baaqaynaa inay yimaadaan haddii Ilaahay qadaro. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مركز كوباد رنهانتي شرف بين نوتهاي ما أنتنا نكسر قبل قلنا حفلة دان جران أوبنينكا الله صنعنا يا مقاعدان كركنا كم مقطع السالي حلال جريل سيدو كلا وحان وهم بليانينا ولالك إنجنير محمود جامع يسيدو كلا بشارو oo dadka maanta suurta galiyay maqaayadani in magaaladani Columbus Ohio laga furo. runta marka laga hadlana waxaan aaminsanahay waxyaabaha
ay tahay in la bogaadiyo la soo dhaweeyo ganacsigu qayb weyn buu ka yahay marka waanu soo dhaweynaynaa ganacsigan cusub iyo maqaaxidan cusub ee magaalada ku soo korodhay waxaan jeclahay ilaahay uga baryaynaa ayadana insha Allah in bash iyo baraaro iyo barwaaqo akhyaartii furatay inuu ilaahay ka siiyo kalena kulan siiyo dadka Soomaaliyeed magaalada ku noolna waxaan ogeysiinaynaa sidoo kale inay haddii la yiraahdo kale dadka ugu horeeyo wax ka cunaba maanta noqonay إن شاء الله أنت كلا بالشدون هنا يمادان وحكعنان قول conference call بيلاذ conference هذا القصة مايو بيلاذ هاي هذا يكلو وناكسن بيلاذ هاي مركز إن شاء الله هلا وذا يمادو حنا نقول فايدة استهدي الله يرادو ولو أمال مهم وصومالي ده مهم وا location هان مركز اللي يرادو 161 area يكوتالا مركز عاد بندم كوكو صودا وين الناس صودا وهذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان معي سجون مد inaan ka qayb qaadano xafladda furitaanka maqaayadan cusub Sally's Grill Sally's Halal Grill oo meel lagu soo kordhiyay Columbus Ohio North Side-ka 161ka iyo Cleveland u dhow marka waa runtii wax weyn oo noo soo kordhay weeyaan meel cunto caalami ah oo ma aragtay cunto moral oo healthy oo Soomaali iyo dhaqanimo kala duwan oo kala ku jiraan لهوي مركز سوماليدا كولومبوس iyo nawaaxigeeda degan iyo kuwa meel kale nooga imaanaya waxaan ku soo dhaweynaynaa maqaayadan cusub caalamiga hambal iyo dadkii bilaabay bismillaah maanta farxad bay tahay inaan ka soo qayb galo Soomaalida Soomaaliga hore waa laga tagay ama shaadaliga furitaanka maqaayada Sally's Grill oo ku taala 161ka runtii saaki aan waxyaabo aad uga helnay reer mudug aan ahay shaah macaan baa meesha ka cabay asxaabadana saaxiibadeena waa ka quraacdeen waxay ka mid noqon doontaa markaan fiiriyay laba waxyaabood oo badanaa maqaayadaha aan Soomaalida u dhameystirneen yaa isku raacday oo runtii saaxiibada meesha yimid ay marqaati ka yihiin fadhiga iyo bilicda oo aad u wanaagsan iyo cuntada aad macaan injineer Maxamed Jaamac iyo xaaskiisa ugu hambalyeynaya maqaayadan cusub oo environment fiican ku taala inay Soomaalida ku soo kordhiyeen aad iyo aad u mahadsantiin بسم الله الرحمن الرحيم صباح ساكع waxaan ka soo qayb galnay furitaanka maqaayadan Sally's maqaayadu waxay maqaayadaha kale kaga duwan tahay waxay leedahay parking horta qof kasta ku filan oo baabuurkiisu uu cariiri galeen xagga dhadhanka raashinka oo raashin Soomaaliga iyo midka Yurubka hadda aan taaganahay labadaba way u dhan yihiin soo dhaweynteedana waa high class waxaan ka codsanaynaa dadka customka reer Ohio kasoo qayb gal wanaagsan caways wanaagsan meel lagu fiistana waa leedahay soo dhawaada assalaamu calaykum bismillaahir rahmaanir rahiim maanta reer Columbus waa dhannahay waxaan u nimaanay meeshan maqaaxida cusub ee laga furay 161 plaza meesha plazada marka maqaaxidan ku soo dhawaada wax walba waa keelisiin cunto Soomaali cunto gaalo wax walba marka waa kaas maqaaxida waatan wax walbana waa keelisiin gacmo furan waan idin ku soo dhaweynayaa walaalkeen Maxamed Jaamacna waa joogaa oo ownerka meesha marka soo dhawaada idin leenahay bismillaahir rahmaanir rahiim Maxamed Jaamac aad baa u mahadsantiin dhamaantiin bulshooyinka reer Columbus ee maanta nagala soo qayb gashay furitaanka maqaayada magaceeda la yiraahdo Sally's Grill oo ku taala 2649 Northland Plaza Columbus Ohio maqaaxidani waa maqaaxi ku soo darmatay oo addition ku maqaaxiyihii hore aan iska lahayd bulshadeenu maqaaxi aad u wanaagsan kolleyde anigu waxay siiskeeda gelin maayo bulshada qiimeyn doonta laakiin waxaan ku faraxsanahay maqaaxidaas inaanu bulshada Soomaaliyeed iyo bulshooyinka reer Columbusba ay u noqon doonto meel ay ku kulmaan oo ka muraadaystaan oo ay xilliga ay nasasho u baahdaan qaxwahooda iyo qadada iyo quraacda iyo quraac special oo meeshan laga sameyn doonaa inay ka soo qayb galaan aad sharaf bay noo tahay waa mahadsantiin dhamaantiin reer Columbusna waxaan xasuusinayaa inay sidii sharafta leh mar walba businesseeda ay u support gareeyaan inayna support gareeyaan businesskana ay yimaadaan oo wax ka gataan maxaa kugu dhaliyay in maqaayadan aad ka furto goobtan aan taaganahay
arrimo badan horta dhalashada maqaaxidan haddaan runta sheegayo anigu iskama lahayn waxaa iska lahayd xaaskayga anigu businessyo kale aan aqaanaa oo businesska maqaaxyuhu businesskayga aan aqaano ma ahayn laakiin xaaskayga bishaaro maxamed ayaa ideyada iyo fikradda ee maqaaxidan la furo keentay aniguna dee maqaaxiyo badan baan mar walba waxyaaba aan samaynayna iyo barnaamijka jiraan ama dada casuumayna aan geyn jirnay markii ay ii soo jeedisay inay maqaaxi rabto inay samaysana waa soo dhaweeyey oo waxaan waa inaan ka dhignaa maqaaxidaas meel dadku iskugu imaan karo meel dad lagu qaabili karo leh meel dad badan fariisan karo qurux badan meel nadiif ah oo cuntadeedu ay wanaagsan tahay inay noqoto aan anuna la garab istaagay oo aan laakiin waxaa keentay fikradda xaaskiga keentay